madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho kaga qayb galay salaada janaasada Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd iyo duqii Muqdisho marxuum Xasan Abshir Faarax diyaaradii sidii marxuum Xasan Abshir Faarax oo muddo dheer ka soo shaqeeyay horumarinta iyo dib u dhiska dalka ayaa markii ay soo cag dhigatay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho waxaana xashka halyeeygan la hubiyay calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana garabka ku soo qaaday cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garaacayay astaan murugeysan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ay soo idlaatay salaada janaasada waxa uu si gaar ah ugu tacsiyay qoyska marxuumka iyo qaar kamid ah dadkii ay siyaasadda ay muddo dheer ay ku soo jireen wuxuuna ilaahay ugu baryay in jannadii firdawso oo ka waraabiyo marxuumka oo dawladnimada Soomaaliya wax badan u soo qabtay intaas kadib marxuumka ayaa waxa loo gudbiyay magaalada Garowe halkaas oo aas qaran loogu sameyn doono iyadoo ay ka qayb galayaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre iyo madaxda dawlad goboleedyada qaarkood xubno ka tirsan golaha xukuumadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda hoose ee Xamar Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa dalkan waxa uu soo qabtay howlo kala duwan asigoona safiir ka soo noqday dalalka Japan iyo Germany